السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حنيدين فليا إن الميلاد جوكتان بإلهي تبارك وتعالى فرحاد دنسيو نرشان وقول نوراتان سيد إلهي رالك يهي تبارك وتعالى قصة المانتا إذن لو ذاقيو وقصة عيك لدوان فإذا نغسينيسا إن شاء الله وأول لن يرى قورسدي قبر داس أدبو جعلا جعيل ولبا حطافي سنة بدن أي وذا السعودين وجعيل أي تشيليين سيدا أي رهدان قبر دي وكوفا كريه ويه هريا همين وكوريوني markii dambe waa guursaday xiriirkii kadib waa guursaday wuxuuna jeclaystay in Ilaahay ka siiyo caruur wanaagsan guri wanaagsan iyo farxad degan gabadha markuu guursaday bila kadib wiilkii wuxuu go'aansaday inuu safro si uu shaqo u raadsado oo shaqada marka uu haystay mid ka fiican oo u helo safar ayuu galay safarkii intuu ku dhex jiray gaarigoo la socday ayaa la rogmaday ama la gadoomay kadib dhakhtar ayuu galay miyir dabool baa ku dhacay oo miyirkiisi ayaa tagay dhaawac halisa oo soo gaaray daraadiis waxaa la yiraahdaa sanad in ka badan ayaa miyirku ka maqnaa baaritaano badan oo dhakhaatiir kala duwan ku sameeyeen wiilkaas reerkoodii waxaa loo sheegay in miyir daboolkan wiilkooda haysta iyo dhaawacan halista uu sanado badan qaadan karo waqti go'aanna uusan lahayn waqtigaas ayaa wiilka aabihiis go'aan qaatay oo gabadhii inuu ka furo ayuu go'aansaday si gabadhaas uusan waqti uga dhumin waayo wiilku wuxuu ku jiraa xaalad geeri iyo nolol u dhaxaysa oo la qiyaasi karin gabadhii waa laga furay wiilkii gabadhii way iska tagtay warkeediina waa la waayay 3 sano kadib ayaa wiilkii soo miyirsaday oo Ilaahay u soo celiyay miyirkiisii aabihiis ayaa u sheegay wixii dhacay wuxuu ku yiri intaasoo sano ayaa miyir dabool ku jirtay gabadhii waaga aroostayna waa laga furay oo anaa ka furay aabihiina wuxuu u soo bandhigay wiilkii inuu gabar kala guursado laakiin wiilkii waa diiday wuxuu yiri xaaskaygii hore aan jeclaa sanadaha badanna jacaylka aan wadaaganay in lay soo celiyo way odagii waa baxay oo wuxuu aaday gabadha reerkoodii aabaheed buu u tagay wuxuu yiri gabadha in wiilkayga lagu soo celiyo ayaan doonayaa laakiin arrin ay safilayn ay meeshii kala kulmeen oo waxa loo sheegay gabadha inay mar hore guursatay nin kale inay guursatay ayaa loo sheegay ninkaas oo ka soo doonay muddo dheerna weydiisanayay in gabadhii lagu daray ayaa loo sheegay wiilkii waa murugooday wuxuuna yiri insha Allah mustaqbal baan u rajaynayaa laakiin gabadha aabaheed wuxuu yiri ninkii guursaday markuu guursaday kadib wuu dhintay 2 ilmood bayna u dhashay wiilkii waa farxay murugadii kadib oo wuxuu yiri nolosha noocaas ana ku qaadanaya ana guursanaya jacaylkayga hore xaaskaygii hore ee masiibadii ugu dhacday sababteed laygaga furay 2 ilmoodna ana kafaala qaadaya xaaladeedaas ayaan ku rabaa ee hadda halaysiyo xaqiiqa ahaan waa lagu meheriyay xaaskiisina oo soo noqotay nolol wanaagsan oo farxad leh ayay ku noolaadeen 7 bilood kadib guurkii dambe ee gabadha guursaday iyadoo garoobo 2 ilmood wadata baaritaan lagu sameeyay wiilka waxa loo sheegay inuusan dhalayn oo yahay mid mandhalays ah waxaana lagu yiri suurtagal ma ahan xaaladaadan inaad ilmo ku dhashid wiilka wuxuu ku raali noqday qadaha Ilaahay iyo xukunka Ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu raali ku noqday xaaskiisaas inuu kula noolaado farxad iyo wanaag 2 ilmoodna uu ka dhigto 2 ilmood oo asagu u dhalay ujeedku waxa weeye Ilaahay waxaad weydiisatid waad helaysaa meel aad ka filayn ayaad ka helaysaa wiilkan Ilaahay wuxuu weydiistay markii hore ee gabadhan guursanayay in caruur wanaagsan uu ka siiyo hase yeeshee wuxuu noqday mid aan dhalin qadarka Ilaahay gaarigii la gadoomay ee dhibaatadii masiibada ku habsatay daraadeed gabadhii kadib waa guursatay 2 ilmood ayay kula soo noqotay oo xalaal ah oo nin kale ay u dhashay intuu miyir daboolka ku jiray 2 ilmood oo nin kale u dhashay ayay dibninkeedii ugu la soo noqotay kadibna 2 ilmood ayaa u noqday caruur wanaagsan oo saalixiin marka dadka waxaan ku xasuusinaynaa gaar ahaan ragga waxa weeye ilmaha aad dhalaysid inuu dhibaato kugu noqonayo inuu saalix kugu noqonayo Ilaahay xukunkiisa ku wasirta laakiin markaad guursato qof ilmo kala dhashay oo nin kale u dhashay rubama laga yaabaa ilmahaas inay kaaga fiicnaadaan kuwa adiga ka soo baxay ee aad dhashay Ilaahayna uu kugu wanaajiyo dhinac kale ha fiirin aniga miyaa dhalay maxaan u korinayaa hadhihin ogow xikmadda Ilaahay tabaaraka wa tacaala ee koonkan ka dhex shaqaynaysa wiilkan sidiisaba mandhalays buu ahaa Ilaahay xikmadiis gaari baa la gadoomay miyir dabool buu sanado badan galay intuu miyir daboolku ku jiray ayaa xaaskiisii inta laga furay guursatay 2 ilmood dhashay ninkii ka dhintay kadib soo miyirsaday kadib ay dib u midoobeen iyadoo 2 ilmood haysata ilmihii sidaas lagu siiyay ee uu weydiisanayay bilowgii guurkooda marka wiilku wuxuu noqday mid nolol macaan ku noolaada 2 ilmood oo agoonta ahaana kafaala qaaday beladii ku dhacdayna u sabray adigu shay qof iyo walaalka ay dhageysanaya wax weyn oo dushaada saaran ma jirto aan ka ahayn in Ilaahay weydiisatid in arrinkaadu ku maamulo hana ka walwalin hana ka cabsan Ilaahay wuxuu ku qadaray ee uu ku siiyay Ilaahay u daa tabaaraka wa tacaala xukunka kuna raali noqo wuxuu ku xukumo waxaan filayaa fikraddu inay idin soo gaartay jazaakumullahu khayran wa salaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh